بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada channelka Naafic Tech. casharka hore waxaan ku qaadanay sida loogu shubo computerkaaga softwareka ama applicationka loo yaqaano virtual box oo bilaash ah oo internet kala soo baxnay. Haddaba bal insha Allah aynu eegno sida operating systemka loogu shubo softwareka virtual box la yiraahdo si aad laba operating system aad computerkaaga ugu isticmaashid. ugu horaan waxaan u baahanahay inaan soo degno softwareka la yiraahdo Linux operating system ka la yiraahdo afwan internetka ayaynu galeynaa Google saad desktopkaaga ka aragtaan Google-kaaga waxaad ku qoraysaa markaa Linux Mint download. Linux wuxuu leeyahay dhowr nooc. Ubuntu baa jira, Fedora jira, Kali baa jira, oo waxaa jira SUSE baa jira. Marka anigu waxaan jecelahay runtii aan aad uga helaa nooca la yiraahdo Linux Mint. marka waxaad ku qoraysaa Google-kaaga Linux Mint download ka bacdina website-ka Linux ayuu ku geynayaa afwan Linux Mint sidaad halkan desktopkaaga aad ka aragtaan. waxaad markaa taabanaysaa dhowr nooc buu leeyahay. anigu kan la yiraahdo Cinnamon ee waliba 64 bit-ka ah ayaan la soo degaa waaba soo dejistay afwan isaga taabanaysaa 64 bit-ka ka bacdina waxaad eegaysaa horta size-ka intuu leeyahay file-ku waa 1.9 gig waa 2 gig weeyaan ayuu leeyahay in ku dhawaada. marka computerkaaga waa inuu space-ka inta leegu horta hayo si aad ugu shubi aad ula soo degtid ka bacdina waan ku shubi doonaa waxa laga yaabaa inaad space kale hard disk-kaaga u baahdo. safxadda markaan iminka saaranahay waxa weeyaan halkii laga soo degayay hadba wadankaad joogtid ay ku xiran tahay. marka halkaad kala soo degaysid anoo Ingiriiska joogan Mareykanka dan dowlad kala soo degi karaa laakiin anigu maadaama aan Ingiriiska joogo waxay fiican halkii ugu dhowna kala soo dego. marka wadankii ugu dhow ma eeganayaa anigu halka Ingiriiska weeyaan dadna labada ikhtiyaar ee labada safxadood ee uu soo qabo oo calanka Ingiriiska ugu soo sawray ayaan markaa kala soo degaya. la soo degi maayo anigu maadaama soo dejistay laakiin markaad taabatid safxadda ama links kan safxadda markaad taabatid isla markiiba softwareka waa ku soo dejinaya. aynu ka soconno softwareka markaa waan halkan ku soo dejiyay waxaad aragtaan waa Linux Mint 19 waa Cinnamon waa 64 bit. aynu furno softwarekeeni haddaba virtual box loo yaqaanay oo talo halkan dhigay desktop ma saaran waa kan desktopkayga saaran double click baan ku taabanayaa waa furay waad aragtaan waxba iguma jiraan wax allaala wax virtual machine oo markaa imika igu jiraan ma jiraan. haddaba waxaan leeyahay file afwan machine baan tegayaa new virtual machine maadaama aan hore u samayn waxaan u bixinayaa magac kan waxaan leeyahay waa Linux Mint 19 halkeeban markaa virtual machine-ka geliya aan ku save garayaa waxaan leeyahay halka C drive-ka barteeda sigada next baan leeyahay ka bacdina wuxuu ku leeyahay memory-ga RAM-kaaga intee baad doonaysaa inuu noqdo. marka hore waan idin tusaanay computerkayga wuxuu leeyahay 32 gig oo RAM ah sidalka ka arkaysid 32 gig oo RAM. marka RAM-kaygaas ayaan qayb ka soo goosanaya. haddaba waxaan oranayaa 4 gig bay iga dhiganiga virtual machine-kayga next baan leeyahay safxadda laga xidh. hard disk-ga imisan ka dhigaa marka imika wuxuu isagu leeyahay oo inala damacsan yahay inaan 10 gig ka dhigno dhib male 10 gig waan isaga dayn karnaa haddaynu doonano waan ku kordhin karnaa 20 gig 100 gig intaynu doono hadba dee waxay ku xiran tahay space-ka aad hard disk-kaaga ku haysatid. anigu sidaas isaga daynayaa waxaan leeyahay waliba hard disk-kana create a virtual hard disk now create baan leeyahay noocee baan ka dhigaa VDI oo virtual disk image virtual box disk image afwan oo loogu talagalay virtual box ma VHD virtual hard disk oo ku shaqeeya softwareka loo yaqaano Hyper-V oo Windows virtualization-ka ah ama VMDK virtual machine disk oo ku shaqeeya softwareka loo yaqaano ESXi hosts ama vSphere. waayahay inagu waxaan dooranaa kii ka ugu sarreeyo ah virtual box maadaama aan virtual box iska isticmaalayno next baan leeyahay. hard disk-ga sidee baad doonaysaa markaa inuu hard disk-kaaga kugu sameeyo dynamic waxa weeyaan hard disk-ka 10 gig baan ka dhigayaa laakiin intaan uga baahanahay un baan isticmaalaya ayuu leeyahay computerku oo had markaad wax kusii shubtid buu sii kordhiya.
fixedna waxa weeyaan hadda ayaan 10 gig ba goosanayaa marka hard diskigaaga iminka ayaan 10 gig ka dhigaya haddii kalena waxa weeyaan 10 gig mar kaliya ma wada goosanaya laakiin marba intaan in yar goosta iminka ayaan hadhow hadba saad usii kordhisid ayaan marba usii kobcayaa ka bacdina waxa weeyaan markuu 10 gig gaadho ayuu halkaa ku istaagaya waa tahay dynamicaasina anigu isaga daynaya locationku markaa ii gelinaya hard diskiga ayuu sheegay file and location size buu sheegay halkaa create baan leeyahay waa tahay saad arkaysaan magaca virtual machine waa Linux Mint 19 operating system waa Ubuntu 64 isagaaba ay gartayba Linux Mint iyo Ubuntu waa isku nooc weeyaan laakiin waxaa yara kala duwan Windows kana aad arkaysaan iyo interface-yada iyo waxaan aad arkaysaan bay yara kala duwan desktop-ka iyo siduu eegyahay waad arki doontaan hadii la ka dhigay laakiin muxuu ka garanayaa bal halkeebuu imika ka keenayaa operating systemka yeelan weli operating systemka waa kan desktop-kayga saaran kuma shubin weli waa inaan u sheego haddaba sidaad computerka caadiga ah markaad operating system aad ku shubaysid ama USB baa la isticmaalaa ama CD drive ka la isticmaalaa shirkadaha iyo meelaha kambaniyada waaweyn waxay isticmaalaan dee network-ka ka shuban marka inagu iminka maadaama aynu computerka ku shubayno waxaanu leenahay optical drive-ka ama CD-ga isticmaal balaynu taabano empty buu waxba kuma jiraan iminka isaga haddaynu taabano choose a disk image or disk image waa file-ka aynu soo dejisanay Linux operating system-ka ama wuxuu yiri create a HOC Visio karan ma taas waxay tahay laakiin disk image-ka inagu dooran waayo desktop-kayga ayaan tagayaa waa kan Linux Mint saaran halkan ka bacdina isaga furaya haddaba iminka markaan shido aan start taabto si uu isu shido computer-kan dayno computer-keeni ku dhex shubnay imika waxaad arkaysaan halkan inoo saaran waa computer-ka oo aan computer-keeni ku dhex shubnay sidaad computer-ka caadiga u shidid baad isagana u shidaysaa laakiin waxaanu taaban karnoo maaha waa wax virtual ah oo ku jira computer-keeni dhexdiisa start baan leeyahay waa tahay ka bacdina waa is shidayaa virtual box Linux Mint waa keenoo soo booday screen-ka ayaan click gareeyay capture buu igu yiri si uu mouse-ka iyo keyboard-ka uu isticmaalo waa ka boot gareynaya iminka capture waa tahay عفوا تلاميذ waa kan soo socda waxaan yara baktiyay fiidiyoga maadaama uu waqti yara qaatay operating system-ku soo shido markaa waa kan soo noqday markaa ay shiday saad arkaysaan waa computer caadi oo la isticmaali karo start menu-ga hadan taabto wax alaala wixii computer lagu yaqaano dhan buu leeyahay internet office-kii buu leeyahay waxyaabihii fiidiyoyada ama wixii codkaa lagu dhegeysanay buu leeyahay administration iyo preferences-kii buu leeyahay waa system settings-ka waxa loo yaqaano ama halka laga maamulo computer-ka internet-ko kale matalan ba haddaynu furno weliba kumaynaan shubin weli internet haddaan galo Firefox ama furo web browser-ka weli kumaynaan shubin operating system-ka iminka operating system-kan aynu ku jirnaa waxa weeyaan waa live environment isagii oo inaan ku shubin computer-kii ayaynu isticmaalaynaa Linux waxyaabaha uu kaga duwan yahay weyn operating system-yada kale operating system-ka Linux uma baahnid inaad computer ku dhex shubtid isagii oo aanad weli ku shubin aad isticmaali kartaa sidaad iminka ka arkaysaan wakaa internet-kii shaqaynayo Google haddaan geliyo wataa Google soo boodaysa waxa weeye yani internet-ku waa shaqaynaya computer-ku caadi buu shaqaynaya isagoo hadana aynaan weli hard disk-iga ku shubin waynu shidnayuun wuu isboot gariyey laakiin waa kan imikeena siinaya ikhtiyaarka inaan ku shubno tani waxaan imika ku jirnaa waa tijaabin weeyaan Linux wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale tijaaba ayuu ku siinaya waad iska sii tijaabin kartaa operating system-ka waa yahay install baan leeyahay Linux Mint haddaan insha Allah doonayna inaan ku shubno aan guda galno bal ku shubitaanka operating system-ka sida loogu shubay hard disk-iga computer-ka waa tahay waliba safxadan aan noo yaraweynayso imika Windows baynu isticmaalaynaa waan iska yarayn karaa virtual box-kii baan ku noqonayaa afwan kan maaha waa kan weeyaan full screen baan ka dhigayaa full screen weli iimuu noqono maadaama aan software-kii si fiican inaan ugu wada shubin computer-ka
weli full screen si fiican igu suurtoobi mayso. Continue baan leeyahay. English raalli ahaada, waxaa laga yaabaa maadaama wuxuu virtual machine yaho aanu processorkiisu processor fiican iyo ram fiican baanan siin, waa yara slow, marka wayna dulqaata insha Allah, dhib malaha. weliba intanaynu ku jirno live-ka weeyaan, maadaama bahalku live environment ku jirno uu maxay ahayday computerkeenu isticmaalayno isagoo inaan weli ku duubin waxaan oo dhan RAM-ka ayay isticmaalayaan ay ku shidan yihiin. English UK baan leeyahay, ka soco. waa tahay marka wuxuu wax software oo kale oo third party ama shirkado kale ay leeyihiin ma doonaysa aad gelisid, may baan leeyahay waan iska daynaynaa. marka wuxuu wax olaala wax operating system oo computerkan ku jira ma jiraan, ma doonaysa inaan hard diskiga gebigiisa baan wada isticmaalo intan wax walba kama soxo, mise inaad optionadan kale aad isticmaashid baad doonaysaa. maadaama uu yahay operating system kaanu ku shubayno hard disk inuu maran yahay, optionka ah hard diskiga gebigiisa ba isticmaal baynu qaadanaynaa. next baan leenahay ama continue. waayahay wuxuu yihi 10 gig buu qaadanayaa operating system kani 10.7. Well, the entire disk will be used. Okay, install baan leenahay. Continue. 1 year buyna siinayaa. Location-ka ayaynu dooranaynaa. next baan leeyahay. hadan dib u yara noqdo, dib uma noqon karo, soo mar labaad waxa male, dhib male. next baan leeyahay. name naafic tag baan oranaa. username-kana waxaan oran karnaa naafic.tag. waay wuu diiday kaa, saas isaga daynaynaa. password ma doonaysaan? haa, password waa samaysanaynaa. password yar iska fudud baan samaystaa. wuxuu waa weak weyn, waa daciif, laakiin dhib male, waa password yar iska fudud. next baan leenahay. marka waa kaa wada insha Allah, imika wuu ku shubayaa. haddaba videogan yara joojinayaa, markuu dhameeyo insha Allah. operating systemkii markii dhawadan tuseen deen isticmaalaynay oo laakiin iminka hard diskiga ku jira ayaynu markaa dib u shidaynaa. iminka markii dhawadan isticmaalaynay, iminka haddaan yareeyo weli waa idin tusi karaa. iminka waxaas oo dhan isticmaalayno iyo Google teenu gelinay iyo internet-keenu isticmaalayno dhan, waxaas oo dhan wuxuu adeegsanayaa RAM-ka, hard diskiga weli kuma jiro. hadda ayuu ku shubayaa hard disk, waa kan le installing copying files. marka haddaynu hoos u socono talo kor ma qaadi karnaa bahalkan, waxba kor ma qaadi karnaa. halkan laakiin aan ka aragnaa halka terminalkii weeyaan, wuxuu naga tusaya waxyaabaha uu sameeyo dhan. calaa kulli xaal waxba idinku dheeranaya, hard diskiga ayuu ku shubayaa. isticmaalka nimanka isticmaalana ma aha computer hard disk, operating system hard disk ku duuban, laakiin waa operating systemkii oo hadda shidan oo live ah oo RAM-ka isticmaalaya. waxaas uu la yara kuutinaya oo la yara gaabinaya. waan yara joojinaya videoga insha Allah. markuu dhameeyo, markuu installation-ka dhameeyo, markuu shubitaanka uu dhameeyo ayaan dib u soo noqon insha Allah taala. wuu dhameeyay ku duubitaanka, haddaba uu ku duubayay operating systemka hard diskiga. haddaba waanu dib computerkan u shidno, oo marka nimanka dib waanu shidno ayuu hard diskiga ka shidaya operating systemka. halkii markii dhaweyd CD-ga uu ka shidayay, CD-gan desktop-ka inoo saaran, uu hadda uu ka shidayay. iminka CD-gaas aynu isticmaalaynay waynu ku jirnaa live sidaanu sheegnay. iminka markaan dib u shidnay insha Allah wuxuu sameynayaa dib buu uga shidaya hard diskiga. restart now baynu leenahay. testing ama tijaabin iminka uma baahnin, waayo dee waynoo dhameeyay hawsheenii. waa kan isshidaya. wuxuu yihi haddaba ka saar CD-ga. waa CD-ga isticmaalnay, devices optical drive. marka host drive baan iska taabanaynaa. waka marka enter marka nimanka taabano waxbuu diiday reference memory. dib aan u shidno. hard diskiga ayaa ku yaraa 100. aynu eegna marka inuu dib isu shido. waa kan yini waan boot garaynayaa. start linux mint may waa diskigii kaasi. devices optical drive.
waayahay dib aan usoo reset garayno reset baynu leedahay mumkinu sida ayaynu eegaynaa waayahay wakaas shidaya wakaa magaceena iyo username-keena noo soo baxay naafic tech passwordkana baynu ku qoraynaa kabacdina desktopkeena ayaan gelinaa marka calaa kulli xaal waxa weeyaan waa operating system aynu ku dhex isticmaalayno operating systemkeena video driverska ayuuna weydiiyey passwordkeena aynu gelinaynaa afwan xinkiidataa wakaa yeelay calaa kulli xaal waxaan waxba sii gudageli mayno casharkeenu linux kuma saabsana laakiin ujeedadu waxay ahayd inaanu aragno sida aad operating system ama computer kale aad ugu dhex shubanaysid computerkaagi de wakaa folderada leh ee applicationadii lagu yaqaano operating system kale iminka desktop documents downloads music pictures waxaan oo dhan waa folderada lagu yaqaano ama structureka ama qaabo habeynta lagu yaqaano operating systemada kani waa linux weeyaan linux baynu isticmaalayna marka waxaan uga soconno hadafkeenu ahaa inaanu inagoo windows isticmaalayna aynu operating system kalena isticmaalno waxyaabo kale aynu sii samayn karno aynu virtual machine kana ku samayn karno si uu usii fiicnaado oo full screenka inoogu noqdo oo ama speedkiisi aynu usii hagaajino way jiraan laakiin casharkeenu waxaa kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay inaynu aragno in lagu shubi karo adigoo softwarekan bilaashka ee virtual box la isticmaalaya inaad operating system kale ku shuban kartid computerkaaga windows baan ku jiraa waa kan windowskayga saad aragtaan desktopkayga markaan doonana waa aniga linuxkayga san geli karaa waan isticmaali karaa wax alaala wax ii diidaya aanay jirin iga xidh kana iga xidh weydinka waa browserka wakaa waxaan rajeynaya insha allahu tacala inaad casharkan ka faa'iidaysteen haddii ilaahay ka dhigo subscribe-ka taabta like taabta share gareeya wixii alaala wixii su-aalaad qabtaana qeybta comments kusoo qora emailka nafic.tech@gmail.com waad igu soo diri kartaan marka insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin dadka sii gaadhsiiya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu